تمام ودود سلامتهين waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halka waxaan caasha sharaf loogu sameeyay walaalkeen xildhibaanka cabdi xakiin ciga guuleed oo inooga yimid magaalada muqdisho waxaan leenahay walaal cabdi xakiin ku soo dhawow gacmo furan anagoo ah jaaliyada samaroonka magaalada Stockholm dalka Sweden soo dhaweyn wanaagsan walaalo dhamaana waa lagu soo dhaweynaya gacmo furan marka ugu horeysa waxaan idinku wada salaamayaa salaanta islaamka marka xigana waxaan jecelahay runtii in aan maanta fadhigan ku soo dhaweeyo cabdi xakiin ciga guuleed oo runtii ah xildhibaan Turkiina oo muugtay meel runtii sharaf leh jooga maanta xaqan inagu yimiday safar inagu yimiday inagoo dhan sharaf bay noo tahay maanta in aynu la joogno aynu soo dhaweyno hortayba la taabtay runtii waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa reer Stockholm oo aan shirarka kuleyba ku xunnahay habase haatee waxay maanta oo kale in dad badan yimaado walow obsiya oo cudurdaar keeno iyo muugtay maxaan ku dhahdaa waqti hore inuu sii ogeysiin أنا أقول راعي تاي وحوي ورم لما تسرع كورة رنتي وحوي أن فرحت بيا هيدين الحمر كواركو نول أبد بيا هيد رنتي ونول آدي أدو أدك نول قرني نو حد عدونا بري هبس هاتي وكحل كهو شوجا كده وسيلة نقول حمر إنه يهي نسيالة وقد ورجبه هاي نروس عقبه وراك لو يهي صوت وحوي أن واحد نجزور بوما أدي أدبو ماتية اللي باكن اللي يرضى أو كسر جوجين طبقي أنا بين محوها دولتي شخص شريف كان هذا كل جوجا أقول لهم ما كتب بحيث تسكير أنا نسيت الرصاص هذا واحد بيجري لكن أبررين ومقعهم جوجا بس أكبر ما هذينا وحنا نسول له وأبو قرب كأننا هي شرف بينوتا إن محوها لو جوجتالكا waxaan leenahay inaan waxaan jecelahay inay qaar badan oo kale ugu soo daydaan ugu soo kordhaan oo ay wax noqdaan waxaan doonayay su'aalaha aan doonayay inaan weydiino waxa weeyaan sidii dib aad ku joogtay meesha 9 soma 9 bal 9 kiinaan sida aad isku xidhantiin waxa mabtiinu yahay inay isku mabdaatiin inay wax ka safiiratiin 9 safiirada xamar loo joogto aad bay u badan yihiin waxaan u maleeyahay wax badan baad qaban kartiin scholarship أنا كهنا ودك وصمعي صومالي كوبحة وحل لها شقالة هايدين أما وساردين وحويا إن كستور اليوم يجمع إن هدي أن ذكا ندور على الموضوع مرنا كهذا عاوة إن حالة تقول دلك يو جرهان إن دلك إنه إن ماشي كسويين إن جودهان دلك وضوء السعتان ودبتوين باكتاجن ماشي وجود رني هوسيها تحمل إن حمر إن وح إن الدراسة يوين وحكجرة لكن الدولة واحد لا تنتعلى أو حي صومالي هاي بمشي هلا وواحد لو خصبيه هاي إن هذا هاي إن الدراسة يو رفعت كيو حكجرة إن وحي صومالي هاي ماشى له الراديو إن واحد ماشى وجوبنا أنا ماشى وحويان وأرنتها وين إن واحد هاي أنو إن حلوان كم إذا إن برلمان كشن لو بقوليشن تضاد كحلوان الصوماليين إن قارن هو إن قد برسي إن سجالك قد برسي ما كمل هاي إن برلمانكو إن وإنستيوشن كلي هذا هذا لسوران كرو إن شقة كسرعة مهول بالكجرتا إن وركو بنصر قارو لكن إن شقة برلمانية وديمقراطية بكسرعة إن أنا سجالك إن حلوان قد برسي نوعا كمل هاي شقوي كسرعة إن قيب كملها أيام كمل هاي إن sida loo socotaan loo boqolishan taadka xildhibaan qabaa'ilka loo kala jooga qolo kasta ka soo jeeda deegaanka iyo maxay lahayd dadka ay matasho hawlaheeda bay ka shaqeysaa in xamar marka in waxa loo joogaa un dan guud oo Soomaaliyeed laakiin in dantii gaarin wali way taala oo in la siga yimaado oo marka la wada hadlaano waa arrin meesha taala in waxa jira in hawlo gaar ah oo ka socda wadanka si gaar ah uga socda oo hadda ay weyn tahay inta in la yiraahdo maadaama dawladdan hadda jirta iyo baarlamaankuba uu yahay aanu qaadnay dastuurka federaaliga
aan hay dowlad federaaliya arrinta ugu muhiimsan ee hadda ka socota waddanku waxa weeye qaabka markaa dalku u noqon lahaa federaal loo noqon lahaa dowlado isku tegay gobollo isku maamul goboleedyo isku tegay oo markaa dowlad sameeyey dastuurka waxaa noogu qoran dastuurka ama hadda isna kubalgaarka waxaa noogu qoran inay maxaa gobollada Soomaaliya la aqoonsan yahay UN-kana ka register karaysan xaggeena maxaa aqoonsanahay inay yihiin 18 gobol ee 19 ka horeeyay wixii inta ka dambeeyay lama aqoonsana mana dastuurka noogu qoran iyo degmooyinkii jiray marka mar hadday sidaa tahay gobolkii awdal wuxuu ka mid noqonayaa markaa deegaan maxaa gobolladii 19 la aqoonsanaa marka dastuurkuna wuxuu qeexayaa dastuur qaabka lagu noqonayo federaal qaabka lagu noqon karaa waa in laba gobol ka badan ay noqdaan marka dadkeena waxaa laga rabaa qaabkii aan xadanaayay gobolkeenaas ugu talin lahayn sidoo uga qayb qaadan lahaa federaalada waddan ka socda sidaad la socotaan Soomaalidu way kala tagtay oo dee nin kasta gobolkiisu ku noqdo ama dhistay ama hagaajistay ama wuxuu ka samaystay laakiin haddana maanta markaad bannaanka u soo baxdo ama meel kale markaad joogto dee Soomaali baa tahay magacii Soomaaliyeed iyo legitimacy-ga Soomaaliyana muqdishay taala waxaan moodaa dadkeenu gaar ahaan bursigu markaan bannaanka u soo baxno xildhibaanadeeda iyo siyaasiyiinteeda markaan bannaanka u soo baxno waxoogaa inay dadku geerag gaabsadaan arrinta maxaa Soomaalinimada oo ay waxoogaa isleeyihiin moogtahay xaggii kale nooga muhiimsanay aan maxaa culayska saaro dhibaato male يعني دنتا gaarka ah in laga taliyo gobolka awdal deegaanka Somaliland ama region kaas oo dhan in dantii iyo wixii aan ka lahayn laga taliyo culays kala saara waa arrin muhiim ah laakiin waxa hadana muhiim iyada si ah in aan la iloobin Soomaali wali waa Soomaaliya adduunka Soomaaliya waa qansan wixii maxaa ardayga boorma ka baxay maanta maxaa ama Suudaan ama maxaa China ku waxbarasho tagaya magaca dawladda Soomaaliyeed ku tagaya oo magaca dawladda Soomaaliyeed ku socda marka waxa muhiim ah in anagu dareeynay gaarka ilaashanayna hadana wixii nooga xidhnaa Soomaalinimo nooga xidhnaa aan ku lahayn xaq baan ku leenahay maxaa muhiim ah oo aan cidna ka baryeyn xaqa Soomaaliya aan ku leenahay cidna kama baryo Soomaali baan nahay cidna marti uga manihin waxa muhiim ah in marka maxaa xaqeeni aynaan iloobin oo maxaa wixii aan ka soo goosano karno Soomaali weyn aan ka soo goosano anagu sagaalkayga xildhibaan meesha ku joognaay niman waxaan isku badannahay niman rag iyo dumarba diaspora iyo maxaa isugu jira dad gudaha ka yimidba waxoogaa waxaan dareenaa in gadbursigu badankiisu naga sii jeedo amaba la nayiloobayo aan maxaa waxba siyaasad ahaan maxaa taageero badan aanan haysan marka waxoogaa waxay ficnaan lahayd bal inaad nala xisaabtantaan oo na dhiirigelisaan sidii aan wax uga soo goyn lahayn cadka Soomaaliyeed ee meesha aan u joogno maxaa arrimo gaar oo isugu nimaadna way jirtaa laakiin arrimaha guud waxaad moodaa maxaa inaan weli aan xoogaanaan isku xidhnayn waxayna ku xidhan tahay idinku haddaad soo qaylisaan anagu dad waxaan nahay dad baan matalaa dad baan meesha u joognaa dadkaan matalnaa haddii ay nala xisaabtamayaan wax loo sheegi waayaan waxaanu iska nuhu niman iska shaqaysanaya meesha iska jooga marka waxay fiicnaan lahayd inaad dabada laga riixdaan maxaa nala xisaabtantaan sidaad la socotaan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda hadda waa nin tolka ah Dr. Xakmaan Beyle waa nin maxaa arrimaha Soomaaliya aad ula socday inkastoo banaanka yimid arrimaha Soomaaliya ula socday waana nin muhiim u ah qadiyadda Somaliland ama qadiyadda gobolka awdal waa nin maxaa aad muhiim u ah anagu markaan xamar joogno idinku Somaliland soo rabtaan anagu si kala u aragnaa Somaliland waa deegaan dhowr gobol isugu yimaadeen oo 5 gobol oo Somaliland loo jiray baa jiray markii labadii unionkii isku tagay marka waxa loo wixii deegaanka ka yimaada ama Soola ka yimaada ama Sanaag ka yimaada ama Awdal ka yimaada ama Hargeysa ka yimaadeen waxaan nahay dad ka yimid dadkii unionka meesha maxaa unionkii Soomaaliya ka mid noqday taasaan u qabnaa Soomaaliyana legitimacy-geeda inay Soomaaliya noqoto maanta dawladda Soomaaliyeed legitimacy-geeda anaga hayna oo maxaa anaga ah dadkii markaa unionka dowladda unionka isugu tagay dadkii matalaya baan nahay marka ninkaas wasiirka arrimaha dibadda waa nin maxaa u fardhuuban
محلنا قضية هذا جار كاه ريركا قضية هذا جود محلنا ذلك الصومالية isagan waxaan rajaynaynaa inaad taageertaan oo la shaqeysaan waxa la wixii maxaadana ay baahiye maxaadana ay jira insha Allah ma naga noo soo marsiisaan ama si toos ah maxaadana ay loola shaqeeyo guud ahaan dawladda Soomaaliya ka jirta waa dawlad magac ahaan la aqoonsan yahay adduunka laakiin awoodii ay ku kasban lahayd dalka Soomaaliya ma jirto حمر بينا حتى ابني نسوي كان مسكب دابين محلنا إني محلنا أما سيلح كتلسوا أما رئيس كمان كتلسوا حمر بينا محلنا يقولي قعنت بكوهينين مركا أيضا وحوي دبيباتوين بدن بقى هيستقوا كم هاي السياسة دي بدأ سياسة جذور قبائل كسكوا هيستان محلنا دتك يوم لطي إن مثلا نقولي دول النما فهم سنين أما واحد هبقون وده كل ما تصنوا بلا دولها marka inuu qofka xamar jooga 20 sano ku gashay ku koray inta ku soo leeyahay fahmo dawladnimada iyo kala dambeyntu waxay u baahan tahay hawl badan u baahan tahay sanadka maanta meeshaan joogno way ka fiican tahay sanadkii hore insha Allah sanadka dambana meeshaan tagi doonaa way ka sii fiicnaan doontaa marka waa process way waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed banaanka joogta gaar ahaan dadka banaanka jooga qurbaha jooga inay maxaadana wixii dhaliilo ah maxaadana soo jeedinayaan si constructive oo yani aanan dadka loo kala ereynin in loo jeedo dowladda iyo baarlamaankaba waa sababta meesha loo joogo laakiin maxaadana aan dadka la kala duwan waxaad moodaa inay loo baahan tahay shaqaysa inay inta badan xumaanta iyo wata inay kala fogeyso inay ka shaqayso warbaahinteenu waxay u badan tahay inta badan kuwo geeskooda iyo qurbaha oo xitaa xaaladda gudaha ka jirta aanan noo haynin marka waxaan soo dhaweynaynaa bal inaan laga shaqeeyo waxyaabaha positiveka iyo nabadda laga shaqeeyo waxaan jeclaan lahaa wixii su-aalaha ay qabtaan inaad ii soo jeedisaan waxaan ka jeclahaa su-aalaha dadka khaaska waxay intaas si goonay leeyihiin marka soo dhawaada